kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qaayaha la ee ku xiran channelkeena waxaan idinka raali gelinaynaa muddadii koobneed aan hawada ku kala maqneen iyadoo ballaarin iyo dib u habeyn lagu waday channelka maantana waxaan idin wadaa muuqaal cusub muuqaalkeena maantana wuxuu ku saabsan yahay dhibaatada haysata dadka muslimiinta ee ku nool dalka Hindiya fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaynu ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto si aad share gareyso muuqaalada haylawin inaad like saarto haddii aad horay channelka u subscribe gareysan waxaynu sidoo kale ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto si aad share gareyso si asxaabtaada uga faa'iidaan xogaha iyo macluumaadka ku jira muuqaalkan mahadsanid waxa uu yiri muslimiinta ha ka tagan quraanka iyo salaada waxa sidaa yiri hogaamiye Hinduism ah oo kiciyay khilaaf maamulka wargeyska ka soo baxay Hindiya ee Britain ayaa baaray iyagoo shaaca ka qaaday in booliiska gobolka Uttar Pradesh uu furay baaritaan ku saabsan eedeymaha hogaamiyaha Hinduismka ee ku baaqay qaadacada bulshada iyo dhaqaalaha muslimiinta intii lagu guda jiray isu soo bax ka dhacay jaamacadda Gujarat Karansin axadii Janaayo 10keedii 2021 sheekadu ayaa waxay ka soo bilaabatay baraha bulshada oo lagu faafiyay muuqaal video ah oo iswaaban annan uu hogaamiye ka ah urur dhaqaaqa Hinduismka ah isla markaana madax ka ah koox fadhigeedu yahay Banaras ayaa la soo dhigay muuqaal uu ku leeyahay qofkii aqriya quraanka wuxuu noqon doonaa wuxuush ma noqonayo aadane kaasi oo aan ka tirsaneen bulshooyinka Hindiya muslimiintu waa inay ka tagaan quraanka oo ay kutubta tuuraan haddii aan bilowno in aan qaadacno muslimiinta bulsho ahaan iyo weliba dhaqaale ahaanba waxay bedelayaan Hinduuga waxaan doonaynaa inaan helno ciidamo ka kooban 1 milyan oo dhalinyaro Hinduism ah xisbiga MD Asif Khan ayaa videogan soo dhigay Twitterka Isniintii Janaayo 11keedii 2021 booliiska magaalada Beirut ee gobolka Uttar Pradesh fiidnimadii Talaadada cutubyo internetka ah ayaa baaritaan kula dhaqaaqay iyagoona qaaday talaabo wargeyska Britain wuxuu la xiriiray madaxda kormeeraysa videogan ee booliiska ee magaalada Beirut ee lagu magacaabo Ajay Kumar iyagoona u diray fariimo iyo weliba wicitaano telefoon ah balse sida ay sheegeen kama uusan jawaabin weli hogaamiyaha Hinduuga ah ee Sarwat oo ku nool Bangalore ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka subaxnimadii Arbacada 13kii January ee sanadkan 2021 wuxuu sheegay in uusan ka baqayn in ay soo weeraraan muslimiinta iyagoona hadallo u jeediyay taasi oo ka dhan ahayd muslimiinta Twitterka wuxuu soo bandhigay faalooyin la mid ah sidoo kale kuwa hore loo daabacay iyo weliba qoraalo hogaamiyaha wuxuu sidoo kale soo dhigay video dood ku saabsan buug ciwaankiisu uu ka dhigay fahamka Muhammad halkaas oo laga maqli karo isagoo leh islaamku wuxuu kiciyaa rabshado wuxuu sii waday isagoo muujinaya in uu taageersan yahay sharciga ka hortagay diinta ee gobolka Uttar Pradesh website rasmiga ah ee shirkadda Barishat uu madax ka yahay Sarwagad ayaa sheegay in ay tahay urur hoosaad kaasi oo ka tirsan Shankaracharya Trust dhibaatada muslimiinta ku haysata Hindiya ayaa aad u tiro badan muslimiinta ku nool Hindiya waxaa lagu qiyaasaa qiyaastii 14% dadka Hindiya in ay yihiin muslimiin kuwaas oo sheegay in si isa soo taraysa loo weeraro iyagoo markhaati ka ah kor u kaca xad dhaafka ah ee lagula kacayo muslimiinta welibana siyaasad ahaan iyadoona Hindida ay weli halgan ugu jiraan sidii ay wala tacaali lahaayeen 10,000 oo infection taasi oo ku saabsan cudurka coronavirus dadka Hinduuga ayaa aad uga dhaliilsan in muslimiintu ay ku eedeeyaan in ay qayb ka yihiin faafinta cudurka Vinod Bansal hogaamiye Hindu ah ayaa mar uu waraysi siinayay qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya sheegay in ay Mongooliyadu tahay ajnabi ku soo duulay oo na doonay in ay la wareegaan gacan ku haynta Hindiya si ay u dhacaan sida darteedna waxaa lama huraan ah in laga hortago marka dalka laga xoreeyay boqortooyadii Ingiriiska waxaa la baabi'iyay oo la burburiyay taalooyinkii Georgia iyo weliba Victoria haddana ma jiro qof masiixi ah oo tuhunsan in ay weerareen dhammaan waxyaabaha soo inay ka dambeeyaan Hinduuda balse waxay tuhunsan yihiin in ay ka dambeeyaan muslimiinta
ayuu yiri Bansal. guud ahaan waana inta muuqaalkeena oo koobnaa taas oo aan uga hadalnay dhibaatada lagu hayo muslimiinta ku nool dalka Hindiya iyadoo ay jiraan muslimiin badan kuwaas oo ku dhaqan dunida haba uga badnaadee muslimiinta igarka ee ku dhaqan dalka China iyadoo yihiin muslimiinta aadka loo dhibaateeyo. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan waxaan sidoo kale ka codsanaynaa inaad like saarto, hayloowin subscribe, share iyo weliba commentiga. haddii aad hayso mawduucyo u baahan in la soo daayo waxaanu ka codsanaynaa in aad qaybta hoose ee commentiga inoogu reebto ama aadna u soo dirto emailka shaashada ku qoran. waad mahadsantahay daawade.